sida aynu wada ognahay maalintii isniintii ee 13 November 2017 waxaa dalka oo dhan looga dareeray codbixintii doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. doorashadii Eebbe Mahdi waxay noogu dhacday si nabadgelyo iyo xasilooni leh. doorashadu waxay si habsame iyo hufnaan leh uga qabsatay 22 degmo doorasho oo hoostaga 6 gobol ee dalka. waa taariikhda markii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliland oo dhan doorasho hal mar si habsame uga wada dhacdo. guddiga doorashooyinka qaranku waxay dalka u asteeyeen 1642 goob doorasho oo ka mid ah degmooyinka kala duwan ee kor ku xusan. waxaa shacbiga Soomaaliland ku xogsiinaya inay sanaaduuqdaas nabad loogu ceegeeyey lagana soo celiyey goobihii laga codeynayay dhammaantood. waxaa kaloo aan xaqiijinayaa in 4 goobood oo qura dalka aanay doorasho ka dhicin arrimo la xiriira muran deegaamo u dhexeeya darteed. mudane marweyn doorashada qaybteedii hore waxay noogu qabsatay si qiimo badan oo adduweynuhu inoogu majeertay isla markaana aynu ka helnay magac iyo maamuus aan la soo koobi karin. xilligii lagu jiray ololaha doorashada waxaanu muujinay ummad ahaan inaynu danta guud ee la wada leeyahay ay u horeyso ta gaarka loo kala leeyahay. dhinaca kale waxaanu muujinay bisayl ballaaran oo gaadhsiisan in iyada oo loolamayo haddana la isku ixtiraamo kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadda isla markaana cid kasta loogu dulqaato dareenkooda shakhsi. waxaynu muujinay inaynu nahay qaran qaangaadhay oo dadaal iyo isku duubni ku meelin kara hamigooda iyo himilooyinkooda siyaasadeed. Soomaalidu waxay ku maamaadaa biyo gacmahaaga ayaa lagaga dhirgaa. sidaa darteed ummadahaan waynu isku fatashanay inagoo ka soo doognay duruufihii iyo diiftii abaaraha. haddana waxaanu dabarka u ridanay dhammaan kharashkii ku baxay doorashada taasoo ahayd midowga ah. waxaan hogaamiye ahaan ka xumahay in quruxdii iyo qiimihii aynu samaynay ay isku dayeen shakhsiyaad koobani inay qoomaan. waxay habeenkii xalay qayb ka mida suuqyada magaalada Hargeysa Barco rabshado ka sameeyey taageerayaal la kiciyey iyadoo aan guddida doorashooyinku soo saarin wax natiijo ah. rabshadahaasi waxay sababeen in dhaawacyo loo geysto ilaa 19 askari oo ka mid ah ciidamada. dhinaca kale waxay sababeen dhimashada 2 qof oo rayida oo ay ka dhaawacmay dhowr kale. waxaan ka tacsiyadeynayaa qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen marxuumiintaasi. waxaan Eebbe uga baryayaa inuu ka waraabiyo naxariistii janno. waxaan guud ahaan ka tacsiyadeynayaa ciidamada qaranka ay ku howlan adkeynta amniga dhibaatooyinka kala duwan ee kala kulmayaan shacbigooda oo adeegayaan habeen iyo maalinba. waxaan ku gubaabayaa in aanay damqan duruufahaasi isla markaana ay kordhiyaan sabirka iyo dulqaadka ay u leeyihiin dadkooda. dhinaca kalena ay xoojiyaan tilaalaha iyo habdhaqanka fiican ay ku waajahayaan xiisadaha ay wadaan dadweynaha qaar ka mid. waxaa reeban in xisbi gaar ah uu ku dhawaaqo inuu guulaystay ka hor intaan guddida doorashooyinku ku dhawaaqin natiijada doorashooyinka. waxaa reeban in taageerayaasha xisbiyadu sameeyaan dabaaldegyo iyo mudaharad toonna ka hor intaan guddida doorashooyinku ku dhawaaqin natiijada doorashada. waxaan farayaa hay-adaha amniga inay dabagal buuxda ku sameeyaan dadka ku howlan dibindaabiyeynta dalka iyo abuurista colaad sokeeye. waxaa waajib ah in la horkeeno garsoor iyo cadaalad madax bannaan. waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta iyo madaxda xisbiyada qaranka inay xakameeyaan cadhada iyo catifada taageerayaashooda. dhinaca kale waxaa waajib ku ah
inay taageerayaashooda ka caabiyaan banaanbaxyada iyo rabshadaha. mar kale waxaan ugu baaqayaa xisbiyada qaranka inay cabashadooda u maraan dalal sharci isla markaana u hoggaansamaan anshaxa iyo awaamirta ay soo saaraan guddiga doorashooyinka qaranku. waxaan leeyahay murashaxiinta tartamaysa ha filanina inaad guuraysataan qura, hase yeeshee waa inaad filataan oo cindigiina gelisaan guul iyo guul darro. maanta guul weyn ayaynu gaadhnay, taasoo ku markhaati kacayo nacaybka iyo nasteexuba. sumcad iyo sharaf weyn ayaynu ka helnay qaabkii doorashada dalka uga dhacday. taasna waxaa si rasmi ah oo markhaati ka kacay warbixinta ay si daayeen goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee kormeerka ku sameynaya gobollada iyo goobaha doorashooyinka dalka. sidaa darteed waxayna la gudboon inaynu adkayno amnigeenna, isla markaana aynu wadajir u ilaalino liibta iyo guusha. waxaan hambaliya halkan uga jeedinayaa xubnaha guddida doorashooyinka qaranka iyo howlwadanada sida ay u guteen xilkii iyo waajibaadkii saarnaa. waxaan kula dardaarmayaa inay inta hadhay guntiga dishes kaga dhigaan oo dadaalka iyo daacadnimada halkaa ka sii wadaan. dhinaca kale waxaan ku adkeynayaa inay iska ilaaliyaan guddoon jilicsan iyo gar weecsan ama gar eexo. waxaan shacbi weynaha Somaliland ku hambalyeynaya sida ay gacanta buuxda u siiyeen goor kasta ciidamada ka howlan sugidda amniga iyo difaaca qaranka. sidoo kale waxaan ku bogaadinayaa deganaanshaha, dulqaadka iyo bisilka ay muujiyeen muddadii lagu jiray ololaha iyo maalintii codaynta. duca qabayaal, waxaad ka dhigan tihiin dhagax lagu tuurayo oo isaguna milo u soo daadinaya qofkii siidayay. waxaan shacbiga Soomaaliyeed caddaynayaa inaan loo dulqaadan doonin cid kasta oo isku dayda inay abuurto fitno iyo fadqalalo, isla markaana khalkhal gelisa amniga iyo deganaanshaha dalka. waxaan leeyahay shacbiga isdejiya, welwelina, kalsooni qaba, dhinaca kalena ilaaliya nabadgelyada iyo xasiloonida. waxaynu ku guulaysanay inaynu isku jilno dhaqankeennii soo jireenka ahaa iyo gedi socodkii dimuqraadiyadda oo ahayd jida nagu cusub. waxaynu ilaalinay inaynu hantida ummadda loo adeegsan ololaha doorashada. sidoo kale waxaynu warbaahinta dowladda loo isticmaalay si siman oo xaqsoor leh.